waddanka Holland xildhibaanadiisa waxaa ka mid noqotay gabar Soomaali Hollandeysa oo loo yaqaano Fatxiya Cabdi magaceedu yahay. Waa sawirka gabadha iga dambaysa. Gabadhani waxa ay ku dhalatay magaalada Fakneqan tuulo u dhow oo loo yaqaano Suusti. Halkan ay wax ku baratay, ku kortay, waxa ayna ka baxday jaamacadda Leiden University ee waddankan Holland ku taala. Waa gabadhii labaad ee Soomaali ah ee waddankan Holland baarlamaankiisa ka mid noqon doonta marka laga tago ayaan xirsi oo sanado badan ka hor ka mid noqotay baarlamaanka waddankan. Fatxiyo waxaa laga doortay magaalada Amsterdam. Waxaa doortay dad Soomaaliya iyo sidoo kale dad kale oo Hollandeysa oo u bagay shaqadeeda maadaama ilaa iyo waqtigii ay shaqo bilowday kasoo dhex shaqeynaysay dowladda iyo sidoo kale arrimaha dadweynaha. Markiidii koobaad waxa ay ku bilowday cilmi baaris, kadib waxa ay ka mid noqotay wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale sportiska ee waddankan la taliya sare ay u noqotay. Kadib magaalada Amsterdam golaheeda deegaanka ay xildhibaan ka noqotay 2022. Haatan ay doorasho dhacday 29 Oktoobar isku soo taagtay inay noqoto mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka waddanka Holland. Waana loo doortay waxa ayna ka socotay xisbiga Groningen Linki and PvdA. Iyadu waxay ka socotay waa laba xisbi isku tagay PvdA. Sidaas ayayna ku fariisan doontaa baarlamaanka waddanka Holland iyadoo ah gabar Soomaali Hollandeysa laakiin halkan ku dhalatay ku soo kortay inta badanna meeshan ku noolayd nolosheedana ku soo qaadatay. Fatxiya waqtigii ay ololeysay dad badan oo Soomaali ah ayay ka dalbatay in loo doorto, sidoo kale xisbigeeda ayaa la ololeynayay oo qaar ka mid ah Soomaali ay yihiin. Waxaa ka mid ahayd dadka ololaheeda Soomaalida dhex keenay Faadimo Faarax oo loo yaqaano Faadimo Hirda oo xisbigaasi kala wada tirsan, taasi oo afkeeda ku hadlaysay Soomaalidana u sheegtay in ay muhiim tahay in gabadhaasi ay doortaan. gabar ku jirto Soomaali ah oo ku jirto Groningen PvdA waa taqaaniin ololeyna oo 24 Farxiya ayaa la dhahaa. iyadana way ku jirtaa macnaha baartaygaas aad u weyn. marka waxaan rabaa Soomaali haddana codkeena inuu saqasaarin, codkeena inuu saqasaarin ama Farxiyo oo odayo Farxiyo numbarkeeda waxa waaye 24 waxayna ku jirtaa Groningen PvdA. ani waxaan Farxiyo u sheegayaa waxa waaye waxaan ka tirsanahay xisbigaas oo Groningen PvdA waxaan ka ahay raadsi. marka hala codeeyo insha Allah haddii la yiraahdo. Kadib olole adag oo ay gashay shaqadeeda oo Hollandeyska iyo Soomaaliguba ay ku qanceen, waxaa loo doortay in ay ka mid noqoto baarlamaanka waddankaasi. xisbigeeda waxa uu helay 20 kursi. 20kaasi ayayna qayb ka ahayd maadaama ay ka mid noqotay 20 qofood ee tirada ugu badan ee codadka ah helay xisbigeeda. sidoo kale waxaa jiray yar kale oo Soomaali ah oo asaguna tartamayay laakiin lama shaacin in asagu ka mid noqdo baarlamaanka. hadda waxaa la ogyahay lana iclaamiyay in Fatxiya Cabdi oo Soomaali Hollandeysa oo waddankan ku dhalatay ay tahay xubin ka tirsan baarlamaanka waddanka Holland. hadda ka bacdina bulshada ay u shaqeyso. waddankan Holland waxaa ku nool Soomaali aad u fara badan oo la qiyaaso ilaa iyo 40,000 ilaa iyo 60,000 in ay u dhaxeeyaan. dadkaasi dhammaantood waa ay dooran karaan qofka gobol kasta oo uu joogo, mana jirto kala qoqob ama sidoo kale federalism sida wadamada dariska la ah Jarmalka. qof kasta meesha ugu dambaysa isaga oo jooga ayuu qofka uu dooran karaa. sidaas daraadeed ayayna ku soo baxday maadaama Soomaali badan oo codeysay magaalada ay degan tahay ee hore xildhibaanka u ahaydna la jecleysay shaqadeeda. hambalyo ayaan leenahay Fatxiya Cabdi oo ah gabar Soomaali Hollandeysa oo baarlamaanka waddankani fariisanaysa.